بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadka meel wada joogtiin waan salaamaya caafimaad waara ilaa inooga barya. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij ku saabsan xanuunada nafsiga iyo meesha iska soo galayaan hooyooyinka uurka leh. Hooyo uur leh macnaheedu waxa waaye shaqo culus oo qof walbo bini aadan insaannimo ku jirto oo dareemi karo. Hooyo markay uurka leedahay yani shaqada adduunka ugu culus ee haysa. Macnaheedu waxa waaye hadhow toole cunuga ka soo baxayo waa cunug u dhiman tahay in uu weynaado laakiin aysan xubin banaanka ugu abuurmi doonin marka sidaas daraadeed shaqadaas gudaheeda ka dhax socoto yani min Allah waxay ku haysaa xanuuno nafsi oo dabiici oo la socda jiro uurka oo hooyooyinka ku dhaco qaar waxa laga yaabaa walaac inuu kula dhaco qaar waxa laga yaabaa muddooyinka dhexe qaarna markii ay dhali rabaan inuu ku dhaco laakiin mar walba waxa waaye problem iyada haysto ilaa ay ka dhalayso marka waxa jiro kuwa dadka yani iyadoo sida u problemsaneed mar waxa dhacdo in banaanka problemka lagu imaado ama ha ahaado inuu odageeda u imaado ama ha ahaado dadka la noosha inuu u imaado ama dhibaatooyin markaas nolosha ay sababtay inay ugu imaado ha ahaado marka waxa marka hore la diidanay xanuunada normalka oo xanuunada nafsiga ah oo la socdo uurka waxay dhahaan dhaqaatiirta saameynay waxay ku leeyahay cunuga uurku jirka hadii xanuun yani dhibkaas loogu sii daro dhib kale ama stress kale ama problemo kale qof kale u keenayo maxay idin la noqon kartaa inuu noqonayo cunugaas yani stresskii hadii oo si laba jibaarmo saameyntin way si laba jibaarmaysa yani cunuga caloosha ku jiro qofka oo wax ka qaadanayo oo ku dhex nool yahay hooyada way hadii hooyada wanaagsan tahay caafimaadkeeda iyo qulubteeda cunugana qasab oo wanaagsanaana caafimaadkiisa iyo qulubtiisa sidaas si lamid ah hadii hooyada aysan wanaagsaneyn caafimaadkeeda iyo qulubteeda cunuga si aad u saameynaya waxa laga yaabaa cunug inuu dhasho asigoo oo culeyska loogu talagalay aad uga yar mar waxa laga yaabaa kobcitaanki oo dhanka maskaxda inay ka yara gaabato dhibaatooyinka badan u imaanayso mar waxa laga yaabaa xilligii loogu talagalay inuu dhasho ka hor inuu soo baxo oo ka hormar ama dhicis amal noqdo ama dhala in lagu koriyo oo u baahdo marka waxaas oo dhan waxa looga badbaadi karaa inay tahay in la fahmo hooyada uurka leh inaan yani loo fiirinin xanaaqi iyo dhibaatada ay iyada gudbinayso waa mid dabiici oo ay ka keenayo xanuunka haayo laakiin se aad loo ilaaliyo mar walba qofka u dhow inta badan waxa isleeyahay qofka u dhow hadirtaan waxa waa odageeda in oo maskaxdiisa ka dhaadhiciyo qofkan la joogto ee maanta uga baahan tahay garab ka weyn mararka kale ay kaliya tahay garabka ay uga baahneed markaan laba qof iskugu dhex jirtaa caafimaadkeeda toos wuxuu saameynaa caafimaadka cunuga yani waxa laga yaabaa wax walba aadani inay iyada saaran tahay mujtamaceennana intii hormartay horta way badan tahay alxamdulilah laakiin waxyaabo kale oo dhibab kale ka dhex jiro waxa inta hadda kow laba ka dhigi kara maahan waa waxa wada ognahay sidaas daraadeed yani maanta waxaan rabaa inaan baraarujin ku sameeyo ama adkeeyo موضوعان إن هو يدا حنونة نفسية دباتة وين وكينا نفسده iyo nafsada cunuga intaba mar waxa jiro horta caadiyan waxa jiro xanuuno hooyada soo wajaho nafsiyan oo markay cunuga dhashay kadib oo lagu yaqaan yani blue baby oo dhaxaan am postpartum waxay noqonayaan yani hooyada inay si kale u aragto cunuga ama cunugi ay ka fiigto ama depression oo ku dhaco ama ka go'do bulshadii oo dhan yani xanuun cusub inuu u imaado waxaas dhan oo dabiiciga ah oo u imaanayay hormoonska badan ee uurkaas ay leedahay hadii aan anagana ugu sii darno mid kale xanuunkeeda leedahay hadii qalad walbo dhaco eedeed iyada la saaro xanuunkeeda leedahay cunugan maadaama ay iyada caloosha ay ku hayso laazim in koo iyada caafimaadkeeda la ogaado iyada ay koo noqoto iyada aad loo xanaaneeyo ka bacdi wax fiican oo soo saari kartaa doo ilaahay markaas caafimaadna wada siinaa marka xanuunada nafsiga ma ahan in ay ka maran yihiin hooyada uurka anagana yaa ugu sii darin mujtamaceena ahaan ama nin ama nooc walba ha ahaado yani qofka markuu uur leeyahay ha loogu naxariisto in ka badan naxariistii hore oo asaga oo mudnaa ama ay mudneed markaas waxaan rajeynayaa inaan wax uniga fahanteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.